dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ku sameysay deeqihii bangiga adduunka uu siiyay maamul goboleedyada Soomaaliyeed iyo sidoo kale beeraleyda guud ahaanba waxaa jira 26 cagacagaf oo beeraha kuwa lagu qotaa oo bangiga adduunka Soomaaliya uu deeqay ka oo loo qaybiyay maamul goboleedyada dalka waxaa la sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya qaabka ay u qaybisay uusan ahayn mid sax isla markaana maamul goboleedyada qaar la siiyay agab badan oo beeraleyda ay ku intifaacin karaan halka kuwa kalena la siiyay agab ka yar wixii ay u baahnaayeen sida dowlad goboleedyada qaar war ka soo yeeray ay ku sheegeen cagacagafyadan oo wadartooda guud 26 ay yihiin bangiga adduunka ugu deeqay beeraleyda Soomaaliyeed ayaa maamul goboleed walba waxaa la siiyay 5 cagacagaf markii laga reebo gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka Puntland maamulka Koonfur Galbeed ayaa helay 5 cagaf halka Jubbaland la siiyay 5 Hirshabeelle iyo Galmudug min 5 ayaa la siiyay waxaana kaliya 2 cagacagaf helay maamulka Puntland taa oo beeraleyda ay ka muujiyeen in ay tahay wax aad loogu xumaado dawladuna ay musuqmaasuq ku sameysay deeqihii uu bixiyay bangiga adduunka ee la siiyay beeraleyda Soomaaliyeed gobolka Banaadir 4 cagacagaf ayaa la siiyay halka Puntland kaliya 2 la siiyay taa oo aad loogu xumaaday qoraal dawladdu ay soo saartay ayaa lagu yiri sida loo maamulayo cagacagafyada cagacagafyadan waxaa leh oo ay weligood ahaanayaan hanti dawladeed waxaa lagu diiwaan gelinayaa xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka iyo kan maamul goboleedka ay ka howlgalayaan 2 waxaa si wada jira u maamulayo oo gacanta ku heynayo wasaaradda beeraha ee labada heer waa dawlad goboleedka iyo sidoo kale kan dawladda dhexe ee Soomaaliya cagafyadani waxay beeraleyda deegaanka loo geeyo u adeegsanayaan ama ku adeegsanayaan si lacag la'aan laga makireeyo beeraleyda Soomaaliyeed ee danta yar ayaa la yiri 4 amniga iyo daryeelka cagacagafyadan waxaa mas'uul ka ah wasaaradda beeraha ee dawlad goboleedka la geeyay iyo xarunta halkaas ay dawladdu ku leedahay waxaa loo qaybiyay cagacagafyadan 5 Jubbaland 5 Koonfur Galbeed 5 Galmudug 5 Hirshabeelle iyo sidoo kale gobolka Banaadir iyo beeraleyda ku dhowdhow iyo Koonfur Galbeed oo la isku siiyay 4 cagaf halka Puntland kaliya si gaar ah loo siiyay 2 cagaf taa oo keentay muran aad u badan si kastaba dad ka soo jeedo maamulka Puntland ayaa dawladda dhexe ku eedeeyay in ay musuqmaasuqday isla markaana isku mid ah aysan wax ugu qaybin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland ay hakratay dawladdu sida qaar kood sheegeen maamulka Puntland ilaa hadda wax warka ma soo saarin laakiin waxa la rajeynayaa inay ka hadlaan wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga la socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena